بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه، وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كلمات runtii iska kooban oo ku saabsiisan waalidka iyo siduu tusaale quman ugu noqon lahaa dadka uu hogaaminayo. dadku mabaadi'da iyo afkaarta iyo waxa la rumaysan yahay talada la dhiibo waxaa ka dhawaaq dheer dhaqanka, hadduu xun yahay iyo hadduu san yahayba. waxa uu afka ka yidhaahdo qofku waxa ka muhiimsan waxa uu sameeyo. waxa uu sameeyaabana ka raad badan oo nolosha kaga raad badan. aabbuhu siiba waalidku waa mas-uul ama waa hogaamiye, waa guriga ciddii hogaaminaysay. hoggaankana inta badan bini aadamku wuu ku daydaa. hoggaanka ku dayashadiisuna inta badan waxay ku xidhan tahay toosnidiisa iyo weynidiisa. alcadama, bini aadamku masaa'ilka caqliga uu jecel yahay waxaa ka mid a cadaaladda, waxaa ka mid a cadamada, weynida. bini aadamku weynida wuu jecel yahay, waana lagu daydaa. cid kastoo naftaada ku weyn oo aada weyneyn u hayso waxaa hubantiya ama ogow ama hogaanin inaad dhaqankiisuna kula qurux badnaanayo aad ku dayanayso. taariikhda bini aadamka dadka cudamada ee soo maray, dadku bini aadamku uu jecel yahay marka laga sheekaynayo. dadka ugu weyn ee aadanaha ilaahay tusaale uga dhigay ee taariikhda bini aadamka soo marayna waxaa ugu sii mudan ambiyada iyo rususha. noloshuna kama maaranto cid lagu daydo. yacni mabaadi'du qiimo ma leh haddii aanay dhaqan gelin, haddaanay wax la taaban kara noqonin, haddaanay noqonin qaab nololeed uu bini aadamku u nooliyay. mabda' nadariyo kastoo qurux badan ceebtiisa iyo wixiisu waxay soo baxaan markuu practicalka noqdo. soomaaliduna waxay dhahaan bini aadamku waa indha ku garaadle bay dhahdaan. yani garaadkii caqliga ahaa waxay soomaalidu siisay isha, waa indha ku garaadle. macnaheedu waxa weeyaan waxa uu arkayo ee dhaqan ah ayaa waxa uu ka raad badan yahay waxa uu maqlayo, waxa loo sheegayo. ilmaha iyo reerka iyo wanaagsanaada caynkan ahaada kan ahaada waxa haddaad maanta oo dhan daldasho waxa ka raad weyn sida aad u dhaqanto, waxa aad samayso, qaabka aad u nooshahay. ilaahay subxaanahu wa tacaala nebigii uu doortay muxamed calayhi salaatu wasalaam fii suurati alancaam ambiyo badan baa ilaahay ugaga sheekeeyey. qur-aanka sidaasaba qisas tiro badan baa ku soo arooray. qisaska ku soo arooray kuwo xunna way leeyihiin, kuwo sanna way leeyihiin. yacnii dad xunna waa laga warramay, dad sanna waa laga warramay. waxaana in badan layna leeyahay faactabiruu yaa ulil absaar, ku cibro qaata, ku jaangoysta. ilaahay subxaanahu wa tacaala intuu ambiyo badan qur-aanka kaga warramay xawaalay 17 nebi ama rasuul inta ilaahay ka warramay ayuu nebiga calayhi salaatu wasalaam markii ambiyada laga warramay baa ilaahay wuxuu ku yidhi ulaa'ika aladiina hada allah fabihudaahu muqtadi. kuwaasi baa ilaahay leeyahy waa kuwa ilaahay hanuuniyey ee hanuunkooda ku daya baa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala. kuwaasi waa qiyaadadii bashariyada, waa hoggaankii dunida soo maray, ku daya baa ilaahay leeyahy subxaanahu wa tacaala. innagana nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam
siiradiisii iyo taariikhdiisii inta rabbi inooga warramay ayaa ilaahay wuxuu ina leeyahy laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana liman kaana yarju allaha walyowma alaakhir wadakara allaha kaiira ilaahay rasuulkiisa waxaa ku sugan baa ilaahay leeyahy uswa aw iswa ku dayasho fiican baa ugu sugan ciddii yaa ku dayanaya nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam cidda aakhiro iyo rabbi ka cabsanaysa rajaynaysa ciddii hunguri ka hayo ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo waxa agtiisa yaalla iyo maalinta aakhiro ee ilaahay xusta in badan ilaahay xusaya kuwaasi cidda ay ku dayanayaan ee tusaale u ahi baa layidhi waa nebiga calayhi salaatu wasalaam nebiguna calayhi salaatu wasalaam caaisha waxay ku tilmaamaysaa markii la weydiiyey kaana khuluquhu alqur'aan dhaqankiisu iyo qaab nololeedkiisu qur'aanku ahaa yacni qur'aan socdu ahaa tatbiiq camaliya sida uu u raadaynta badan tahay bini aadamku dhaqanku daraaddeed baa ilaahay rusushaba u soo diraa kitaab ilaahay waa soo deji kari lahaa mucjisa oo dadku intay akhristaan la fahmo laakiin waxaa rususha loo soo raaciyey inay qodaan amhiladii ama tusaalayaashii xayiga ahaa ee ka warramayey qur'aankan iyo sidatan haddaba mabaadi'da iyo tasawuraadka iyo afkaartu waxay u baahan yihiin namuudaj model tusaalayaal la arki karo oo lagu dayan karo dhaqan kastoo fiican oo aynu rabno inay ubadkeenu yeeshaan wuxuu u baahan yahay ciddii uu kaga dayan lahaa markaan leeyahay waalidka lagu dayanayo waxaan rabaa inaan tilmaamo inaad tusaale noqoto inay ka muhiimsan tahay inaad waacid noqoto qof wax wacdiya inaad noqoto waxaa ka muhiimsan inaad noqoto qof example ah qof tusaale ah qofka qaa'idka ahina hoggaanka haya ama dadku ay ku daydaan marka uu mabaadi'diisa muujisto ay ka muuqato ayuu credibility helaa ayuu misdaaqiye helaa ayuu qof la aamini kara noqda walidaalika baa nebiga calayhi salaatu wasalaam sifaadka lagu sifeeyo waxaa ugu xooganaa alamaana iyo wasidq inuu aaminaha rususha oo dhan u fiirso qur-aanka nebi weliba muxuu leeyay innii lakum naasixun amiin mid idiin naseexaynayana waanahay amiinna waanahay alamaana bay yidhaahdaan waa qiyaadadu kama maaranto qiyaadadu waa ciddii rabtay inay cid hogaamiso qofka raba inuu cid hogaamiyo oo qof raba in lagaga daydo waxa uu wado iyo sidqigu waa runsheeg runsheegga tii afkoo qura ugama jeedno dhaqanka inaad ka run sheegto oo waxaad rumaysan tahay dee waa inuu dhaqankaaga ka muuqda markaasaad run sheegtay saadiq dhaba markaasaa tahay si awgeed waxaanu leenahay aabbuhu waa tusaalaha koowaad ee guriguu leeyahay sida uu u dhaqmo ayaa waxay ahaan doontaa biidn illaahi tacaala wax ka xoog badane haddaanu jirin sida ay ubadka guriga jooga iyo hooyada guriga joogaana ay u dhaqmaan walidaalika baa ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa inaanu iskhilaafin waxaynu sheegayno iyo waxaynu ku dhaqmayna inay ceeb tahay ama ilaahay agtiisa wax ku fool xun inay tahay yaa ayuha aladiina aamanuu lima taquuluuna maa laa tafcaluun kabura maqtan cinda allahi an taquluu maa laa tafcaluun war kuwa iimaanka laga helayow maxaa ugu dhawaaqaysaan ama ugu qowlaysaan waxaydan samaynaynin waxaanad samaynaynin maxaad ugu hadlaysaa baa ilaahay leeyahy haddaba tusaalahaasi adduunkana midhuu leeyihi aakhirana midhuu leeyihi haddaad tusaale quman noqoto adduunka midhuu leeyihi oo midhihiisa waxaa ka mida ubadkaagu inay hagaagaan haddaad tusaale fiican noqoto aakhiro midhuu leeyihi oo cid kastoo dhaqankaa kaaga dayatay
abaalmarkeedii baad helaysaa waman dalla calaa khayrin falahu midlu ajru faacili haddaad tusaale xun noqotana abaalmar adduun buu leeyo ubadku dhaqankan bay qaadanayaan iyo dadkii kugu xidhnaa aakhirana wisrigaasaad xambaaraysaa cid kastooo dhaqanka kan qaadata sida awgeed ayaa khayrka in la sheega oo afka laga sheego waxaa ka muhiimsan in lagu dhaqmo waxaana ilaahay subxaanahu watacaala inoo tilmaamaya dadkii saalixiinta ee uu qur-aanka ilaahay kaga warramay ama cibaaduraxmaan uu ku sifeeyey dhaqamo badan oo ay leeyihiin baa ilaahay tilmaamay cibaaduraxmaanka waxaa ka mid a salaad ay tukadeen waxaa ka mid a barya ilaahay baryaya wacibaadu araxmaani aladiina yamshuuna cala alardi hawna waidaa khaatabahum aljaahiluuna qaaluu salaama aayaadkaasi ilaahay dhaqankaas buu soo tiriyey dhaqankaa waxaa ka mid ah oo ilaahay tilmaamay والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وقوة بريدو دو أي كمت إلهي له ربك يو واحد نصيصا هوين إيا أبط إيشو أي كدوك ستو تاسوا بريدي لكن محا كردبو أي ليين واجعلنا للمتقين إماما inta alla ka cabsatana kuway ku daydaan naga yeel imaam nooga dhig muqtadaha ka u ah ka dadku uu ku daydo inta ilaahay ka cabsataa kuway ku dayato ilaahu naga yeel bay leeyihin haddaba ayuha alxiba waxay idhahdaan qofka bini aadamka insaanku bitabcihi buu muqalladiye bifitratihi xataa marar badan bay idhaahdaan ayaa waxaa dhacda qofku caqliga inuu khilaafo isagoo arkaya wuxuu inay qaldan yihiin oo u khilaafo dhaqanka majority-gu u wataan qoladan social scienceska ama psychologyga ka warantaa waxay tilmaamaan Salomon Ash nin ay yidhaahdaan nin yahuudi ah hore kontonaadkii tajribe sameeyey tajribada tani waa nadariyat alqatiic nadariyada yidhaahdaan arday baa la keenay 8 arday 7 la soo heshiiyey su-aalaan idin weydiinaya waxa qaldan ku jawaaba su-aasha si sax ah uga jawaabina qaladkaa sheega midna waxba ma oga dabeetana waa la fadhiisinayaa su-aashii baa la weydiinayaa mid baa qaladkii sheegaya ka kala ku raacaya waa su-aal basiid oo qaladku u muuqdo kii 8aad aan waxba ogeyn wuu shakeeyaa markaa wuu yara amaamusaya wareegayaa marka dambe iyagu raacaya markuu su-aaluhu soo wadaa tiro badan su-aalaha waxaa ka mid ah qaar aragtiya xariijima halkaa lagu dhigayaa xaggaana xariijimo kalaa lagu dhigayaa xariijimo way kala dhaadheeryiin dheeraan ishu ay arki karto laynkaas inaanu laynkaa leekayn waxaa la odhanayaa laynkaa ka leege xagga ku yaalla sheega kuwii la soo heshiiyey laba aan is leekeen baa odhanaya kaa bii baa leeg mana leeka markaasuu kala odhanaya bii baa leeg marka dambe kana iska raacaya bii baa leeg buu isna leeyay ishiisii waxay arkaysay ayuu dhaqanka meesha ka socda daraaddeed qola psychology waxay bixiyeen nadariyat alqatiic shibhead theory baa la yidhaahdaa waa nadariya psychology iyo sociology iyo lagu dhigo macnaheedu waa maxay bini aadamku waa indha ku garaadladaa dhaba idan haddii majority-gu ama dadka meesha jooga dhaqanku uu xumaado waa adagtay wacdigu inuu wax taro culture-ka inta badanaanaya haddaba ilmuhu intuu yar yahay ama guriga jooga ama uu aabbaha wax weyn u arko aabbuhu guriga markuu joogo inta uu ilmuhu yar yahay nolosha oo dhan waxa ula weyn aabihii hooyadii baa dadba ula fiican oo ula weyn beriga dambe uu soo korey 12 jir iyo meelaha soo gaadhay magaalada ogaado ayaa qaamada aabihii soo yaraanaysa laakiin intan hore aabihii baa wax walba ula weyn idan hadduu aabbahaasi iyo hooyadaasi quman yihiin runta ay run u yaqaaniin oo run sheegayaan ballanka ay oofinayaan dhaqankoodu uu toosan yahay nabigu calayhi salaatu wasalaam yani saynu tusaale u noqono wuxuu tilmaamayaa salaada waxa u fadli badan ragga baa la yidhi salaaday tukadaan tay gurigooda ku tukadaan marka laga reebo maktuubada
يعني marka faralka laga reebo inaad guriga ku tukataa ka fadli badan masaajidka inaad ku nusaysato حتى nabigu wuxuu leeyahay fi masjidi hada markaasay culimadu yidhahdaan sunnayaasha masjidka nabiga lagu tukado armay ka fadli badan tahay sunnaa gurigaaga aad ku tukanaysaa taa macnaheedu maxay sheegaysaa waxay culimadu yidhahdaan waxa la rabaa inaad tusaale xay iyo tukanayo guriga joogo dadku ay arkayaan inaad noqoto inaad gurig saamurka saad u noqoto hadaad salaadaha dhan masaajidka ku soo dhamayso guriga marka la seexanayo inaad timaado ma muuqanayso inaad tusaale salaadeed tahay sawgeed buu nabigu wuxuu leeyahay jamacana kaalaya sunankana waxa ku tukataan maxay gurigiina ku tukada buu tilmaamaya haddaba waxaan leenahay dadka yaryar dadku markay yar yihiin ilmuhu wuxuu soo bilaabaa bay yidhaahdaan koritaanku psychologically wuu isbedelaa caqliga qofku siduu u korayo jirkiisu siduu u korayo waxoo dhammi way iswada bedelaan markuu yar yahayba wuxuu bilaabaa bay yidhaahdeen xaasatul iltiqaat baa xoog u shaqaysa bay yidhaahdaan waxa hareerihiisa marayoo dhan wuu maabgaraynaya u qabanaya waxay yidhahdaan he's like a radar bay yidhahdaan raadaarku soo marka halkaa la dhigo dayurad kasta iyo wixii meesha duulaba raadaarka waa laga arkayaa ilmuhu waxa meesha ka socda oo dhan wuu arkayaa bay yidhaahdaan waxaa kaloo xoog u shaqeeya bay yidhaahdaan khaasatul muxaakaa waliqtidaa ku dayashada waxa uu maqlaya uu arkayo wuu qabanayaa kadibna wuxuu tijaabinayaa inuu yadii sameeyo wax kaloo dhan baa ka fekerin waa sidoo afka ku barto afka muxuu ku bartaa qofka yari wuxuu ku bartaa wuu ina dhegaystaa waxaanaynu ku hadlayniyo waxaanaynu wadnuu dhegaystaa kadibna wuu tijaabiyaa ilaa yow ka barto noloshoo dhanna waa siduu ku yihi haddii uu aabbuhu good example yahay markaasi adigu ma ogid laakiin isha ilmahan yari way qabanaysaa ballankaaga runtaada waxaad sheegayso saad u dhaqmayso dagaalkaaga cadhadaada wax kastoo agtaada adiga ka socda isagu wuu qabanayaa waanu ka falcelin doonaa markaa haddaba waxaan leenahay haddii dadka waaweyn ay tusaale u baahan yihin bal ee saalixiintu ay u baahan yihiin bal ee nebi maxamed loo tilmaamay oo inta ilaahay uga warramay calayhi salaatu wasalaam ambiyo la yidhi ulaa'ika kuwaas kuwaan hanuuniye ilaahay yidhi ee fabihudaahum iqtadih lagu yidhi dadkii waaweynaa lagu leeyahay laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana haddii qofkii maankiisa qabay ee caqligiisa qabay weynaa ama mujtamacii kobocsanaa uu u baahan yahay tusaale uu ku daydo maxaad u malaynaysaa qofka yar markaa ama dadka guriga jooga maxaad u malaynaysaa iyaga waa sababtaa awgeed sababtuu nabigu u leeyahay fa abawaahu yuhawidaani aw yunasiraani aw yumajisaani waxaa loo leeyahay waa kaa waxaa markaa aabbaha toosani waxaan leenahay waa waladiina hum liamaanaatihim wacahdihim raacuun waa kuwa ammaanadooda iyo ballamadooda ilaaliyabaa ilaahayba ku tilmaamaya qur-aanka ilaahay wuxuu leeyahay laysa biamaaniyikum walaa amaaniya ahli lkitaab waxaad jeceshiin waxaad doonaysaan waxaad yididiilanaysaan idinka iyo ahlu kitaabku toona maaha baa la yidhi man yacmal suu-an yujza bih markii lasoo yidhi ayaa haddana ilaahay wuxuu aayadda ku xigta leeyahy waman yacmal min asaalixaati min dakarin aw unthaa wahuwa mu'min cidda samaysa idan waxay culamadu yidhaahdaan camalka iyo falka muhimka ah camalka iyo shaqada iyo falka ayaa muhimka ah haddaba aabbe iyo hooyada raba abnaadooda iyo caruurtooda inay qiyam iyo values iyo dhaqamo fiican ku beeraan waxaan leenahay un horta adigu toosnow oo inta aad adigu matasho ayuu matalaya si uu taa nebigu u tusiyo ayaa calayhi salaatu wasalaam xadiidka abu daawuud uu soo arooriyey iyo bayhaqiba fi shucabi sheekh alalbaanina xasan ligayri ku sheegayo cabdillaahi bnu caamir saxaabiga la yidhahdaa wuxuu leeyahy iyadoo aanu nebigu gurigayaga joogo ayay hooyaday ii yeedhay maalin buu yidhi nebiguna gurigu fadhiyey waxay tidhi kaalay hooye waxbaan ku siinayaa
maxaad siinaysaa buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam. waxay tihi waxaan rabaa inaan timir siiyo. haddaanad siin lahayn buu nebigu yidhi been baa lagu qori lahaa. yani maxaa la diidayaa ilmaha yar xataa haddii loo yeedhayo la rabo in la qabto inaan been lagu sasabin. marka haddaad aanad waxba siin lahayn aad u yeedhi lahayd baa la yidhi been baa la qori lahaa. sida awgeed macnaheed waxa weeyaan inaynu good example noqono, inaynu inagu qumanaano. waxaanad adiguba ahayn inaad ilmaha ka doontaa waa yaro adkaanaysa, weliba marka uu bulsho kale oo iyana tusaale u alla joogo. tusaalenimadu siday u adagtay waxaad tilmaamaysaa xataa arkaantii islaamiga ahayd nebigu calayhi salaatu wasalaam af oo qura kama sheegine wuxuu ihi salluu kamaa ra'aytumuunii usalli, aniga ii eegta oo sidaa aragtaan inaan u tukanayo u tukada. yacni waa ishu siday u xoog badantae wax u qaadayso daraaddeed ba waxaa la yidhi salaadii uu nebigu leeyahay qoladii wafdigee timi maalmaha nala joogtaan salluu kamaa ra'aytumuunii usalli buu yidhi ii eegtoo sidaa aragtaan inaan u tukanayo u tukada. xajkii buu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku leeyahay saxaabada khuduu cannii manaasikakum, iga qaata manaasigtiinna iyo mawaaqiftiinna iyo meelaha istaagaysaane xajka igu dayda waxaan samaynayo. halkaan istaaga, halkaan ku ducaysta, halkaan dhagaxa ku tuura, halkaan ku tukada, aniga iyo eegta buu leeyahay nebigu calayhi salaatu wasalaam. waxa muuqdaa qofka way kaga raad badan yihiin wax kale. walidaalik buu nebigu xataa isagoo og saxaabadiisii inay yihiin, isagoo ictikaafsan habeen oo masaajidkii jooga ayay soo booqatay xaasaskiisii mid ka midi. dabeetana cabaar buu u sheekeeyey. cabaar markuu nebigu ugu sheekeeyey masaajidka gudihiisii ayay xaaskiisii iyo isagii israaceen nebigu calayhi salaatu wasalaam. iyagoo sii wada socdaa laba saxaabay arkeen, dabeetana dhan bay uga weecdeen. mahlan calaa rasulikuma buu yidhi, waxbaa degdegina, waa safiya buu yidhi. waxay yidhaahdeen ilaahay rasuulkiisiiyo yacni ma inaanu ku tuhumaysanaad ka cabsanaysaa, xaasha inaanu saasi dhacdaay. wuxuu ku yidhi nebigu shaydaanku majra dam, halka dhiigu maraabuu bini aadamka maraaya inuu wax idinku soo tuurabaa. yacni ishu waxay aragtaa waa inay siday u raad adag tahay. xataa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa waxa uu tilmaamayaa gabadhaa la socota ay arkeen inay si kale u fasirmi karto. marka siday ishu iyo dhaqanku iyo qofku tusaale uu noqdo ayaa muhiima. haddaba haddaynu tilmaamnay waxaas aynu sheegnoo dhami waxa weeyaan qudwadu inay khatartay. qofka raba haddaba inuu qudwo noqdo maxaa laga rabaa? haddaynu tilmaamnay inay qudwadu adag tahay oo lagama maarmaan ay tahay, qofka aynu rabno haddaad rabto in lagugu daydo waa inaad maxay samaysaa? si kooban dee waa inaad muslim dhaba noqotaa. wixii alliya rasuulina fare inaynu fulino. waxay yidhahdaan kow asilaax, waxaa ugu horeeya inaad qof quman noqoto. qumanaantay sheegayaan waxay yidhahdaan waa fii baabi alcaqiida, wa fii baabi alcamal, wa fii baabi alikhlaas. waa inaad toosantay. caqiidadu waa waxa ay ka dhalato tasawuraadka iyo afkaarta iyo aragtida iyo qiimaynta iyo value. waxaasoo dhammi waxay ka dhashaan waa wuxuu qofku rumaysan yahay. waxaad rumaysantahay hadduu qaldan yahay, aragtiyaha iyo afkaarta iyo waxa kaa soo burqanayaana waa qaldanaanayaan. caqiidadu hadday saxan tahay markaa waa inuu qofku caqiidadu saxantaa, dhaqankiisuna waa inuu saxmaa oo waxa uu rumaysan yahay uu sheegayo waa inay ka muuqataa maxay? dhaqankiisa, cibaadadiisa iyo wixiisa. ikhlaas waa inuu ka muuqdaa. ikhlaasku waa maxay? waxaynu la rabnaa noloshoo dhamm inay noqoto maxay? midaynu ilaahay ugu dhowaanayno. waa inaanay manaaficda dunawiga ka dhex muuqanin. inkastoo noloshan dambe xataa waxyaabihii qurubaadka ahaa maadiyaad bay isu rogeen. noloshu markay adkaatay ayaa wixii qurbada ahaa, tafsiirkii la akhrinayay, muxaadaradii la dhigayay, qur-aankii carruurta loo dhigayay, imaamnimadii dadka la tukanayay, hataa waxaas oo asalku uu ahaa inay qurbo noqdaan
waxaad moodaa nolosheennan dambe inay maadiyaad xataa iyagu isu rogeen xataa iyagii baa lacaga noqday nolosha kale maxaad u malayn asalka diintuna waxa weeyaan in la dareemo xuduudu nafsiga inay naga baxdo dheef adduun inaynan wax ku rabin asalkii diinku waa kaa asalkii diinku waa maxay wax kastoo aad qabanayso waxaa asal u ah dheefta inaad ilaahay ka rabto inaad dee janno raadinayso dheef waad raadinaysaa laakiin dheeftaa ah maxay taa weyne dambaysa ah idan waxaan leenahay qofka raba inuu qaa'id ummadu noqdo qiyaadadu ama tasare ha noqoto had iyo goor marka qiyaado la sheego dadku madaxweynayaasha iyo ra'iisul wasaare kuwaasay eegaan laakiin war waa isku mid guri hogaamisaya iskuul hogaamisaya masaajid hogaamisaya malcamad hogaamisaya bulsho yar community hogaamisaya waa isku mid way yartay bini aadamka qof aan cid hogaaminaynin dawaa'irta aynu hogaaminayno unbaa kala kooban laakiin cidba cid unbay hor fadhidaa ugu yaraan islaan iyo dhowr carruura baad ayaad hoggaanka u haysaa idan waxaan leenahay qof kastoo hoggaan haya waa inuu qof silaax uu ka muuqda noqdaa laba waxaynu leenahay xusnulkhuluq xusnulkhuluqu waa valueska aynu rumaysannahay inaanay wacdi noqona inay muuqdaan ilaahay qur-aanka markuu nebi maxamed ammaanayay ammaanaha ugu sarreeya qur-aanka ugu yaalla waxaa ka mid a wainaka la calaa khuluqin cadiim baa ilaah yidhi amase aayadaha ugu cajabta badan leh waxaa ka mid ah aayaadka ilaahay uu kaga warramayo ghaswat alaxzaab ghaswat alaxzaab dhacdaa dhacday argagax badan dhacdadaasi waxaa sababay mashaakil ay saxaabadu geysteen وأن هذا مركز يرادين قل هو من عند أنفسكم بل جوابي مشاكل أيجو جيستين مشاكل كسوة حكرت بمي إن مسلمين تي أي لا يو تضباط تنظيمته قارب حصدان فردت كي أحد كعري دي مقالد وقالي مدينة وقالي مشاكل بدن النبي عليه الصلاة والسلام رب بدن يسوق قاردو قضية يدو إلى هيك والرمية هي آيات التعقيبين وحكمدين إلى هيري فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم وشاورهم فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إلهي وحوله نحريس حقا لك تمي هدانا دوجود دبعين هداد قف أدك أهان لهيد ويكايا علهيد ولو حق شيكني يعني أخلاق دو waa waxa keena qofku inuu dad la socod noqdo cibaadada qura maaha dad iska salaad badanto wardi badanto haddana jacjoor tahay cidna ma wadi karaysid laftaada waad u cibaado badanto waad u wardi badanto waad u salaad badan tahay laakiin wax ma hogaamin karaysid dad jacjoor soo baxdo sawgeed buu ilaahay wuxuu quraan ku leeyahay naxariistu waa waxa keenay baa ilaahay leeyahay inaad wax hogaamiso haddaad noqon lahayd baa ilaahay leeyahay qof adag oo qalbi engegan dadku way kaa yaaci lahaayeen saxaabadii qaldanta haddana waxaa la yidhi facfu canhum wastakfir lahum cafi oo ilaahay dembi dhaaf u weydiiy qofka aan cafiskaba aqoonin wax walba tiriya caruurtu khata ay gashiya wax walba buugga madow ku qora uun isna waxba ma hogaamin karayo سأوجد بقى إلهي يودو وحاس الدعين بهدنا اللي فاعفوا عنهم واستغفر لهم وحكوا له يري وشاورهم في الأمر أرن كان الله مشاركة وضدك أخطاء كذا عضي يهدنا وحلة الماما يعني أرنك وحكوا له ينا وحلا جسيو كو بركوا حلنا قفك دده كامنية يلا الربو إنه أبقوا من نقضه عقيدة دي سيا عبادات كسيا خلاص كسوين وتوصى لبا أخلاقياتكم وين ونكسن هذا صدح ورك يدقنكم وين يسوافقان قولك يا عملكم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون بإلهيري إلهي وحلي ضدك ما وناقا وشي جيسان نفيهن نوا إلا بيسان إذن كو كتابك هدنا آخرين ورميادا عقل إلهي ما إلهي لي تعقل وحو شيء ونقى شيء سنة ضوء سكبير أوضو
caqliga waxaan kaasuu sheegaya lama odhanin war maydaan sharciga garanaya waxa la yidhi war maydaan caqli lahayn idan qowlka iyo ficilku hadduu iswaafaqo waxaad dadka u sheegaysiiya adigoo dhaqamadaadu hadday iswaafaqaan waa aabbihii qaa'idka ahabaad noqonaysa qodobka afraad aan ku gebagabaynaya wuxuu yahay waa inaad garanaysaa qaababka dadka loo ta'hiiriyo loo raadeeyo iyo wasaa'ilka ama asaaliibta ama qaababka wax loo hogaamiyo maalan laba tusaalaan bixinaynaa aabbaha mithaaliga ahi ama qaa'idka mithaaliga ahi waa mustamic jayid bay yidhaahdaan waa qof wax dhegaysta waxaan uga dan leenay innagu soomaali ahaan inta badan dhaqankeennu ma laha dadka yaryar in la dhegaysto dhaqankeennu waa dhaqan u eeg inta badan dhaqanka askartoo kale thaknaat alcaskariya sida loo kala sarreeyunbaa awaamir laysu siiyaa waxba kale laysma weydiiyo waa amar saa ninka soomaaliga ahay guriga inuu amaamur ka bixiyunbuu jecelyahay yararka saa yeela idinkuna saa yeela islaanta saa yeela qolada sacanka ha yeesho dabeetana uu ka baxo waxaa ka roon inaad horta dhegaysato carruurtaada baran maysid weligaa inaad dhegaysato mooyaane adiga way kula quman yihiin uun markaad ilaa askarigaa wax amraya taysna waa kaa baqayaaye waanu fulinayaaba laga yaabaa markaa uu ku hortaagay wuxuu samaynayay laakiin isma baranaysaan ilaa aad ka sheekaysiisoo dhegaysato ilaa ay dhab noqoto waxa uu dareemayo inuu kuu sheegi karo wuxuu qabana ma daweyn kartid inaad ogaato mooyaane idan waxaa fiican inaad mustamic jayida noqoto marka hore qof wax dhegaysta dadka warka ka dhegaysta ka labaadna waxay idhaahdaan muxaawir maahira inaad hadhowna noqoto qof si fiican wax u qancin kara hadhowna warka markaad dhegaysatay qaadatay qof wax qancin kara tusaale waaxida nabiga calayhi salaatu wasalaam oo majlis fadhiyo oo saxaabadii la fadhido ayaa wiil dhallinyarii u yimi dabeetana wuxuu ku yidhi waxaan rabaa anugu in zinada lay fasaxaa baan doonayaa buu yidhi waa wiilkaa dhiiran ee intuu saxaabada soo dhex maray nebi maxamed u tegey waxaanu ku leeyahay waxaan rabaa suuqa in aniga laygu sii daayo halkaa masale baan doonayaa in lay fasaxo nabigu calayhi salaatu wasalaam waa dhegaystay warkiisii saxaabada qaar baa hadlay wuxuu yidhi suga wiilkii soo dhowow buu yidhi udnu wuu soo dhowaaday xiwaar buu la galay marka xiwaarku la galay waa xiwaar aqligiisu uu garan karo wiilka kan wuxuu yidhi niyo waxaanaad doonayso hooyada miyaad la jeceshay buu yidhi zinada miyaad hooyadaa la jeceshay may buu yidhi miyaad walaashaa la jeceshay may habaryarta eedada dumarkii qaraabada ahaa buu nebigu tilmaamay inankii wuxuu yidhi maya anigu reerahayaga waxaas lama rabo wuxuu nebigu u tilmaamay dadka kalena dumarka kalena cid unbay hooye u yihiin ama walaal u yihiin ama inan u yihiin ama eedda u yihiin ama habaryar u yihiin oo dadka kalena lama jeclaa dabeetana wuu u duceeyey maxaan uga dan leeyahay haddii aada mustamic jayida tahay mashaakilka jiraad ogaanaysaa hadaad qof wax dhegaysta tahay waxaa jiraad ogaanaysaa haddaad muxaawir maahira tahayna waxbaad cilaajin karaysaa waxbaad daweyn karaysaa dhibta jirta ayaad daweyn karaysaa idan labada goor midna kuma fiicna inaad waxba dhegaysan weydaana ma fiicna marka dambena inaad amar uun bixisaa ma fiicna inaad xiwaarka taqaanaa fiican marka horena waa inaad mustamic jayida tahay marka dambena waa inaad qof muxaawira oo doodi kara oo qancin kara oo mufaawadaad samayn kara waa inaad noqotaa aabbuhu toosnidiisa waxay ka qayb qaadataa ilmaha toosnaantiisa qalloociisuna bulshada qallooceeday ka qayb qaadataa waayo ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa laba aayadood oo qur-aan ka mid ah ilaahay wuxuu tilmaamayaa duul diiday waidaa qiila lahum tacaalow ilaa maa anzala allahu ila arasuul waar waxyiga iyo rasuulka wixii loo soo dhiibaya alle wixii uu soo dejiyey kaalayoo qaata baa la yidhi maxay ku jawaabeen qaaluu xasbunaa maa wajadnaa calayhi aabaa'ana abbayaal wixii laga dhaxlaa nagu filan
aabbuhu waa khatar marka hadduu qalloocdana hadduu inkaar qaba yahay wixii laga dhaxlay wax daran hadday noqdaanna kuwani waxay la lumeen xasbunaa maa wajadnaa calayhi aabaa'ana ilaahay wuxuu yidhi awalow kaana aabaa'ahum laa yaclamuuna shay-an walaa yahtaduun aabbayaal miyaa la yska raacayaa haddaanay waxna garanaynin hanuunsanayna okay waxaan leenahay aabbaha guriga jooga haddaan waxna garanayn hanuunsanayna caruurtu way raacaysaa waxa uu wadaa bay ku raacaysaa idan adaa lagaaga baahanya inaad waxna garato hanuuntana haddaad rabto inay kuwani hagaagaan adigu waxna garo hanuunna aayadda labaadna ilaahay wuxuu leeyahy في سورة البقرة وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون وسيدي يوكله والراعي الدين تمرك الله إلى وحي لين ما يوحي أنه كسو قاعدني آبيال بان غفلا إلهي وحلي ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون آبياشود هدي قراد لا ويا لهايين أن جدك الصحة أهينين نم يا الراعية waxaan kusoo koobayaa leeyahay aabbaha iyo siduu u dhaqma ayay u badan tahay gurigu inuu u dhaqmo haddaan dabadda ka imanin wax ka xoog badani haddaanay dabadda kaga imanin maxay wax ka xoog badani waa suurtagal aabbahoo fiican wax ka xoog badan inay dabadda ka yimaadaan waa suurtagal aabbahoo xun wax ka xoog badan inay dabadda kaga yimaadaan laakiin asalku waxa weeyaan intan uu hogaaminayaa siduu isagu u dhaqmaabay inta badan u dhaqmaya warkaygu markaa wuxuu ku kooban yahay caruurtii baa xumaatay ama caruurtii baanu u taag weynay armay ka horeysaa aabbayaashii baa loo taag waayey haddii aabbayaasha loo taag helo kuwan yaryarna in loo taag heli lahaa ama hooyayaasha haddii loo taag helo in kuwan yaryarna loo taag heli lahaa in badan waxaynu ku celcelinaa tarbiyatul awlaadka hala sameeyo tarbiyatul awlaad haddaad maanta oo dhan kutub akhrino oo manaahij danno laakiin ciddii hormuudka ka ahayd tusaalaha ka noqon lahayd iyadoo aanay qumanaanaynin waa adagtay inuu kan yari qumanaado marka warkaygu wuxuu ku kooban yahay war nabi maxamed baa ilaahay yidhi calayhi salaatu wasalaam kuwaa ku dayo innagana nebi maxamed baa layidhi ku dayda dadkan yaryarina kuwan ka waaweyn bay ku dayanayaan kuwan waaweyni ha qumanaadaan kuwa yaryari waynoo qumanaan doonaan bal ee waxaa la arkaa haddaad adgu qumanaato ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa qumanaantii waalidka qaar loogu naxariisto waxoodii loogu ilaaliyay fii suurati alkaaf wakaana abuuhumaa saalixan baa ilaahay yidhi aabbayaashood baa ahaa ayaa saalix ahaa dabeetana bisilaaxihim ayay intifaacsadeen kuwan yaryaroo ilaahay subxaana wa tacaala waxoodii ugu dhowray idan salaaxu waalidku in shaa allahu cidla dhici maayo laakiin waxayn leenahay inagu aan noqonno aabbihii lagu dayan kari lahaa sala allahuma calaa muxamedin wacala alihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin